inta uu socday dagaalka Iiraan ee bilowday bishii labaad ee sanadkan Ruushku waxa uu Tehran u muujiyay inuu yahay saaxiib dhow oo ay ku tashan karto xilliga adag garab istaaga Moscow oo kuma ekeyn xilliga colaadda oo kaliya waxa ay xoguhu wariyeen in Ruushku weligiisba kaalmo military oo aan xad lahayn isuguna jirta diyaaradaha dagaalka ee fighter jetska la yiraahdo helicopterska ilaa gaadiidka gaashaaman sanad iyo hubka sniperska oo balaayiin dollar ku kacaya siinayay jamhuuriyadda Iiraan tababaryaal ciidan ilaa nidaamka difaaca hawada ayay Moscow ka caawisay Tehran sida laga xigtay saraakiil hore oo Ruush ah taasoo si xooggan u saaciday awoodda isdifaaca militariga Iiraan diyaar garowgooda hubeed iyo dhismaha nidaamyada madaafiicda ee muddadii dagaalka Iiraan dunida uga yaabsatay tani waxa kale oo ay tusaale u noqotay in jaalasha Iiraan ee quwadaha military ku gaashaaman waa Ruushka iyo Shiinaha midkood noqday jaal dhow oo garab ahaan lagu tashan karo marka ay dhinaca xuduudda joogto waa Ruushka halka kan kale waa Shiinaha ee ku gaabsaday garab istaagiisa Iiraan ee masraxyada diblomaasiyadda taasoo Tehran laf ahaanteeda u aragto garab ay u baahnayd Ruushku kuma ekeyn kaalmo hub oo kaliya waxa uu sidoo kale Iiraan si xooggan uga kalmeeyay dhinaca xogaha sirdoon iyo basaasida saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe taasoo sababtay in jamhuuriyadda Islaamiga ah ay dhulka la sinto in ka badan 16 saldhig oo kamid ah fariisimihii Mareykanka ee dalalka jasiiradda Carbeed taasi waxa ay Moscow ka wajahday eedayn iyo cadaadisyo xooggan oo uga yimid docda Mareykanka ha ahaatee ilaa hadda labada dal waxa ay ku adkaysanayaan inuusan jirin isgarabsi military oo ka dhaxeeya waxaase sheegashadan beeninaya xogaha cadaynaya iskaalmaysiga dalalkan ee furimaha dagaalka oo Iiraan ayaaba ku horeysay dhanka garab istaaga iyadoo bilowgii dagaalka Ukraine Ruushka siisay sanad madaafiic qoryaha garabka laga rido ilaa madaafiic plastic ah oo ah kuwa ridada gaaban docda kale waxa kaalmaynta hubeed ee Ruushku siinayo Iiraan lagu qeexaa mid argudasho oo uu doonayo inuu galbeedka markiisa ku hubeeyo Iiraan maadaama ay iyaba ilaa maantadan ku hubeynayaan Ukraine